السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وعباس نور علي حسابية شركتها نذرلاند عاوة وحن كلن كان يسوي إيماني إنان بحنو warbixino ku saabsan waxyaabihii soo kordhay sanadihii ugu dambeeyay iyo waxyaabaha sanadaha soo socda 2025 ah waxa ka soo qayb galay dad badan oo leh shirkadaha nasiiban shirkadaha yar yar ee Netherland waxyaabihii ugu muhiimsanaa aan caawa halkan kaga hadalnay waxa ugu muhiimsanaa sharciga ah in la kala saari doono wadanka dadka shirkada leh ee saxda ah iyo dadka shaqaalaha dadban ah sida ay Netherlandka u yaqaanaan isqayn self-standardized dawladda waxay soo saartay ilaa iyo 9 shuruudood oo looga baahan yahay inay soo fuliyaan shirkadaha si loogu aqoonsado inay yihiin shirkad haddii aysan taas dhicin waxay noqonaysaa inay bixiyaan canshuurihii sida dadka shaqaalaha ah oo kale iyo dadka siiyana abdraqtiga ama mataqaanaa siiya shaqada in loo tegi doono iyadana laga qaadi doono wixii canshuura ee ku waajibay inay bixiyaan intaas ayaa ugu muhiimsan sagaalkaas qodob waa koow inaysan lahayn wax mataqaanaa xiriir shaqaale iyo shaqasiye ah inaysan lahayn uu caddayn karo labo waa inuu mataqaanaa asiga waqtigiisa uu go'aan ka gaari karo waqtiguu soo galayo waqtiguu ka baxayo in mataqaanaa asiga uu sheegan karo tariifkiisa ama lacagta uu ku shaqeeyo in mataqaanaa uusan lahayn wax roostara ama mataqaanaa la dhihi karo waqtigaas soo gali waqtigaasaad ka bixi inaan la dhihi karin in uu qofkaasi mataqaanaa soo buuxiyo saacadihii loogu talagalay inuu shaqeeyo ay tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee saameynaya waxaa ka mid ah sanadka 2025 ah waxaa la sugayaa go'aanka ay maxkamadda weyn ay gaari doonto mataqaanaa dacwadii u socotay Uber iyo FMV oo ahaa in dadkani ay yihiin shaqaale u shaqeeya marka haddii mataqaanaa maxkamaddaas ay soo saarto in dadka Uber u shaqeeyo dhan ama dagaasiileeda Uber oo kaliya ku eg ama platformka sida Uber iyo Bolt ku eg oo kaliya in ay noqon doonto in ay mataqaanaa dadkaas yihiin shaqaale oysan ahayn dad madax banaan oo shirkada leh inaysan ahayn sharciga weligiisu jira bida ah mataqaanaa balance taxi hal eray inuu yiri control bilaabina inuu yiri wax kale ma dhihin sharciga su'aal sheegay wuxuu soo maray weligiisna waa jiray laakiin ma ahan wax cusub waa sharci oo mataqaanaa maxaa la yiraahdaa controlkiisa kooda janaayo oo la bilaabay waxa uu soo noqonayaa Ilyas han su'aalaha ku weydiiyo shuruudaha aad aragtay meeqa u maleynaysaa inaad ka fulinaysid marka laga reebo price waa kasne price waxaad weydiisan kartaa qoladaas waa dhihi kartaa hadda kadib email bifasqan iyo soo dir waxaan kugu shaqaynayaa intaas waad ka dhigi kartaa adiga practical fiirinayna mugta waxyaabaha qaarkiisa theoretical kaliya lagu maxallin karo waa in lagu xaliyo iyadana baragtaay haddaa u dirtid email oo aad dhahdid waxaan kugu shaqaynayaa hadda kadib 33 euro email bifasqan iyo soo dir shuruudaas waa fulisay waxaan maleynayaa intaas way gaaraysaa sanadaad soo socda ayaga go'aan ka gaaray anigu waxba kama dhigi kartaa may haddaa dhahdid baragtaay haddaan waa xalinaynaa mugta si baragtaay aan xalinaynaa haddaa email u dirtid oo aad dhahdid hadda kadib waxaan idinkugu shaqaynayaa maxaa saddex aan kugu shaqaynayaa hadda kadib email bifasqina intaas gudahaysan ii soo dir waxaa laga yaabaa inaad mataqaanaa middaa barayska aad iska xalisid haddii lagu yimaado dhihi kartid aniga barayska gabdaal gareeyey waan u sheegay anaa u sheegay waana kanaa emailka u diray emailka iga soo jawaabeen oo ka iga soo dhaheen waa kana wax walba waxaa la rabaa in baragtaay ahaan loo xaliyo iyada theoretic iyo practical waxaan laga hayno aad u kala duwan yihiin aniga hadda 10 sano ayaan disabeerahay hadda qolooyin badan TTO waa ka shaqeeyey Uber waa ka soo shaqeeyey qolo kale la shaqeeya oo aydan odrata aan siiyo oo RMC la dhaho
waxyaabaha aan ka yaabana waxaa kamid ah saacadii lacagta aan ku shaqeyna saacadii anaga go-aan kama gaarno baa naloo go-aamiyaa oo bilmitaal markaa ermisa bilaabayay waxaa lacagtii eurokooda 31 euro ay ahaan jirtay xbaytv haddana waxay maraya 34 ilaa 10 cent xbaytv maray markasta ayagaa farhooqin sameeyo laakiin waxa keliya oo meeshaas aan kasoo geli karin waxay tahay inaan xur ahay oo maalintaan rabana aan dhihi karo waa idiin shaqeynaa maalintaan rabana aan dhihi karo ma idiin shaqeynaya taas keliya aan ka dhex arkay saacad ma go-aamiyo haddii aan usoo laabto taas waa su-aasha koowaad marka taas isku qabanay su-aasha labaad waxay tahay dadka uber ka shaqeeya waa la yaqaanaa hadda waxaa ninkaas ka dhawaajiyey maxay daashka ka dhawaajiyey inuu zambeer loo arkaynin qofkii haddii saacadii 33 euro ka yar ay soo gasho dadka hadda uber ka shaqeeya meeshaan fadhiyaa qofkii dhihi kara ma joogaa 33 euro per uur aa uber ka sameeyaa oo fastiya marka see isku qabanaya marka theoretici practic waxaa ku dhex jirno sharciga loo sheegtay milihii ganaaxii waxyaabo kalaa soo zaahidaya marka ashtablin iska adkeeya mataqaanaa inaad bor computerka 3,000 4,000 ka bixiseen inaad u isticmaashaan uu ku badbaadiyo waxyaabo badan uu kaa badbaadiyo iyo inuu mataqaanaa wax walboo dikhitaal xataa ahaadaano administraasiga dikhitaalka wax walba maalin kasta waxaa maqlaa bor computerka kii hormahayo waan iska xoolay ama laakiin balastinka waxa furbilifta xataa dikhitaal ha ahaado ama mataqaanaa fisi in 7 sano aad dhabaargaraysid waa khasab waa furbilifta waxay ka mid tahay mataqaanaa waxyaabaha loo baahan yahay ka mid tahay iyo mataqaanaa kilometer distractigana dhib weyna naga haysta waxa waaye mataqaanaa wixii irfeya wixii saakliga wixii fombeerka wixii oo dhan waa isku dhexdaagsan yihiin marka waa inaad kala saari kartaa lagu dhigi karaa mataqaanaa baabuurkan 50 kun uu socday waan sheegi karaa 50kaas kun waxay kala yihiin oo dhan beeraya maxaase u waajibaya maxaase maaragtay anigu aan leeyahay xuquuqan yeelanaya 2020 wixii ka dambeeyay shaqayn karaa oo susubay noqon karaa asoo shaqo kale iska haysta taxis isku wadan laakiin waxa la isku haysto waxay tahay fordeliyaalkii uu haystay qofka undernamingka ama helaya mise ma helaya marka fordelka haddaadan helin waxay noqonaysaa ilaan badanaana waqtigii aad ka shaqay milihii ganaaxii waxyaabo kalaa soo zaahidaya marka ashtablin iska adkeeya mataqaanaa inaad bor computerka 3,000 4,000 ka bixiseen inaad u isticmaashaan uu ku badbaadiyo waxyaabo badan uu kaa badbaadiyo iyo inuu mataqaanaa wax walboo dikhitaal xataa ahaadaano administraasiga dikhitaalka wax walba maalin kasta waxaa maqlaa bor computerka kii hormahayo waan iska xoolay ama laakiin balastinka waxa furbilifta xataa dikhitaal ha ahaado ama mataqaanaa fisi in 7 sano aad dhabaargaraysid waa khasab waa furbilifta waxay ka mid tahay mataqaanaa waxyaabaha loo baahan yahay ka mid tahay iyo mataqaanaa kilometer distractigana dhib weyna naga haysta waxa waaye mataqaanaa wixii irfeya wixii saakliga wixii fombeerka wixii oo dhan waa isku dhexdaagsan yihiin marka waa inaad kala saari kartaa lagu dhigi karaa mataqaanaa baabuurkan 50 kun uu socday waan sheegi karaa 50kaas kun waxay kala yihiin oo dhan qaynaysay markay bataan mishaarka wixii mataqaanaa baday sida cabaas baa sheegay controlka waayahan bay u socday plastic runtii dadku marka la yidhaha plasticka ku controlya way cabsadaan hadday waxaa kuu saxsay in wax cabsaya ma leh cabaas baa runtii waxyaabo badan iga caawiyey oo hadday noqoto dhinaca fakatuurada iyo waxyaabo badan horta waxaan ka warwariyay marnaba may ahayn tagsiilayaasha waxaan kula dardaarmayaa sida cabaas ku sheegay halka arrin ee inoogu daran horta waxay tahay waxa weeyaan board computerku naga haystaa waxay lagu weydiinayaa shirkadaadu siday u shaqayso intee oo daraqtiyeed ka shaqaysaa oo yacni ma hal meel baad ku kooban tahay oo dhalinyaro waxay jirta aan TTO-na haysan boltina aan ka shaqayn oo uber keliya inta ku xidhan
waxaa laga yaabaa xoogaa in mataqaanaa aanay mataqaanaa kuu fiicneen adiga ahaan xataa shakhsi ahaan haddii abka laga aqalo gareeyo kale xitaa meelaad u kacday ma haystid so markasta waxaa qurux badan inaad dhowr meelood horta ka shaqaysa ka taadaysto meelaha ka shaqayso dhan kulli waa lagaa wareysanayaa sidaad u shaqaysaa saacadaheed ka shaqaysaa khayfnada xitaa aad ka shaqayso waxyaaba badan horta sidaad u shaqaysa kaa wareysanayaan se midka ugu dhibka badan oo mataqaanaaye aan idiin faa'iidinayo waxay tahay isticmaalka board computerka isticmaalkiisa haddaad ogaato simple weyn laakiin qofkaan garanayn aad bay ugu adagtay marka aad board computerka aad kaarkaaga geliso wax lagaagama baha wax kasta isagay ku jiraan haddaad socotay haddaad taagnayd haddaad qof waday intaba isaa ku register garanaya iyo haddaad bawso ku jirtay that means wax board computerka ku jira ee hadhow tolo laga soo saaraya ha ka warwarin waxaad ka warwaraysaa marka waxa weeyaan inta aanu board computerka ku jirin ee brifiga aad u isticmaalayso walaalaha aan garanayn sida loo isticmaalo intaanu ku jirin hadday u baahan yihiin waan tusi doonaa marka waxa ii yimid oo layga weydiiyey sanadkii 22 dhammaan kilomitarka aan socday inta shaqada ahayd iyo inta briefing ahayd baynan caddeeyo so waxaa la sameeyaa board computerka 3 bilood kastoo ka mid ah ama bil kastoo ka mid ah adigoon cidna u tegin amaan cidna uga daba fadhiisan waxaad soo iibsan kartaa USB 3 bilood kasta adigaa ka wareejisan kara oo board computerka kaga wareejisan karta USB-ga haddii aad ka caajistood istiraahdo niyo 3 bilood kasta waan iska ilaawi karaa bini aadan baanahay ama bil kasta ma samayn kariyo mataqaanaa howlaha ugu badan sanadkii ayuu ku mataqaanaa opslan garaynaya board computerka sanad wixii ka badan matalan 2 sano kale opslan kuma sameynay matalan sanadkii 23 kale 23 kale marka haddaad istiraadaan kulligii board computerka ka doono kama soo helis sidaad ku caddaynaysaa dee waa inaad handamaataq iyo mataqaanaa aad kadeed kala gasho oo hadhow tolaa kugu noqoto waxaan munaasababa ayaad soo dirtay laakiin haddaad sanad kasta ka wareejisato ama 3 bilood kasta ku wareejisato USB-gaaga hadhow marka lagu dhahay sanad hebel baan kaa rabnaa soo caddee USB-ga miska u saarsa waxaad leedahay wax walba halkaas ku jira intaad socotay eed briefing ku socotay iyo intaad mataqaanaa shaqaysayba marka kaasaa ugu dhib badan arrinta briefing banka wax lagaa imka hataa waxay soo weydiiyeen oo cabaasna ogyahay xitaa briefingii kale imkaan isticmaalo kule waa arkeen wixii ku jiray iyo sidii wax loogu soo diray sidaan wax uga diray briefing bank waxaa jiray 2021 aan isticmaali jiray oo laakiin iska xidhay waxaanan u xidhay waxa weeyaan isticmaal badan kuma samayn jirin muddaan mar furtay oon anigu arrimo yaran ka lahaa oo furtay laakiin kiiba hadda laygu yidhi mataqaanaa maxaan ku raamaya sanad xisaabeedkaas ku jiray waa inaad wixii lagu diray wixii mataqaanaa soo galay ayaan rabnaa inaan ogaano noo soo diro marka wax lagu dhaafay male bankiga wax kastoo soo galo oo xisaabinaya incomekaaga lagu daraya hadduu briefing yahay iyo hadduu saaklig yahay laakiin waxaan u maleynayaa arrimaha bankiga inaad ka cabsataan ma baahnid oo min kow ilaa dhammaad bankiga iskaga waday kale lacag briefing sidiisa baan waxba uguma isticmaalo wax kastoon waxaan ka wadaa saagalaga marka ay igu soo dhacdo lacagtayda aan soo shaqeeyey briefingan u soo dirsadaa saagalaga hadi goor wixii shirkadaada uun qaabilsan inaad ka bixisaa qurux badan oo matalan magaranaysaa inaad briefingaaga mariso maaha wax shirkadda quseeya wax shirkadda aan quseyna inaad ka mariso magaranaysaa saagalaga ma fiicna wixii briefingga quseeya briefing ka isticmaal wixii shirkadda baabuurka isticmaal mataqaanaa quseeya saagalka ka isticmaal waa inaad saa u kala saarto الله تعالى وبركاته مجيء وعبد الخني علي كل علون أنا جوا دوميها تكسيليدا نذرلان عاوة هلكم وحاسبون من كل وين وآدو بلارن ونكسر سومالي دكسوخ بقشة آدو بدنتهاي أنا جوا كله فكوريني شروع عصب دالك سودكتي ولا فيلا يميز بدل بدل لو سمايا ومدة عصب دالك لو ريبتي يكوه رب سيجربه حاولني هم سناسيد خفكو ونفكر اسكي وشقيستا oo ah qof iskiigu shaqaysta ama ah sazabeer fontaneymer iyo shuruudaha looga baahan yahay oo 9 shuruudood ah in la sharxo oo loo sharxo sidii qofka uu ka soo saari karo ama uu diyaar garoobi lahaa sanadaha soo socdo sidii uu uga qayb qaadan lahaa arrinkaas haddii kale wuxuu luminayaa fursaddii ahayd inuu iskii u shaqaysto
halkan waxaan uga mahadcelinayaa dhammaan ustaad Cabaas Nuur oo halkan soo abaabulay soo kan yeeray asaga iyo walaalaha kale ee la socday arrinkan ku takhasusay xisaabaadka xagga shirkadaha iyo cashuur celinta uu ka mid yahay walaal Ashkar uu ka mid yahay Maxamed iyo dhammaan walaalaha waxaan uga mahadcelinayaa kulanka ballaarna halkan noogu sameeyeen ay wax badanna noo faa'iideeyeen oo aad iyo aad u wanaagsan waxaan mar kale u mahadcelinayaa alla ka sokow walaalaha Harlem Stichting-ka ku leh bartnerka aan lahay walaalaha qaaliga ah uu ka mid yahay Mahad iyo dhammaan Shiine iyo walaalaha kale oo la halmaala ee la shaqeeya farsamada iyo dhammaan oo noo isku fidiyay gogol aad u wanaagsan la siiyay halkan oo aan ku falanqeeyna maanta dhammaan waxyaabihii loo baahnaa soo dhaweyn wanaagsan ayayna siiyeen waa uga mahadcelinayaa iyagana ma jiri doona maxaa la yidhahdaa 6 bilood oo kasoo dabarayaa kadib may u bilaabaneen waxyaabo badan oo waxaa jira weli faaqa oo aan heldar ahayn السلام عليكم ورحمة الله. سؤال شيء ده اللي بدنا هو اللي ويدي لها وحا تاكسي انت بدنا نشرح لنا لكن الشقة دي ده هذا أنا كلها خيار كله إلى جو تاكسي معهم سد حدا أنا بدنا نشيك تنا الصرف يبفايل يباوع نماح وإن ستركتور مركب مكجران وحيابها كنترول كعصب وقصص هذا haddii uu ku jirana controlku wuxuu bilaabanaa fana 15 oo cafala ama salafamiya mise macluumaadkii hore la is control doona oo maasanta سؤال شروط شيء يكون سؤال شروط إن هي كان في لين وين سؤال شروط يكون ما في على مارك سمع الله مارك ويب سايت أجرحتها هدياست كونتراكت كنت أنا أنت كم سنة صار وحاولوا مدور إذا في له حاولوا هذا شقة سنيس نوعيته علم يا أبا عندها إكسترا أم علم يا لا جنبه ما هو صبرتي مركب هاي علم ولا هذا شقة سنيس أما ورقة دي هيست مدي كنا هاي وقتياش خينست ما عليك وقتك قاعد سنكره أما وحاء ورقة كوكور وحلية وقت جاس بلو وقت جاس كبح شقة هذا لما تبغى تصدقات وحاويه شركات ده أوش خيزو أما قف قاعد شقة كوسية الشركات اللي عادي كميتها شركات ما تحكي لي ساعة أو شغالة عميها كميتها حتى ده كان صدق صوص صار أما أو شركات وش خيزت صدق هذا يألس من 100 هنا أما هذا هو الأركة هنا تاعي زز بيعان ميد كلامين محاوية مشاركة خاتت كسرات أي تلف كم لعت هذه خاتت هذه مياس لعت الشيء أنا أما قف كأوش خيس أما شكل أوش خيس بالعت كوش كنا أنت أنا كسينا هذا هذه اللي أنا أي تلف كي وحنا شغل يكون بحني أنا كشيء أنا يوم هذا أنا ما كاس على البشيط ما كاس حتى هسه صندق لكن ده لو يراه ساعات اللي عطيه كسيني هاي شغل أنا قبل وهذا هو كشيء كذا ساعات المشاركة هذه مش هيك كثير مركز حتى شغال مركز حاول جواز وحاول هذه مضح بنانتها إنات وحي كونتراكت لو كلها هي واحد وشقين هذه إلى شيء وقت إنات هذه شقين هذه مضح بنانتها هذا مهمة بدنا قبلها زرق وبقادر كواهي شخص سنة وقدم بيسي هل مالك شقيا ما بكرة كسي سيد قفك شقالها ويجوا شقينا isku labis ay wataan isku looq ay wataan isku wixii ay wataan isku roster ay wataan isku waxyaabaha dawladda diidaysa wax xasar ka mid marka waa inaan caddayn kartaa qofkan aad daraftigiisii wax shaqaa isku leenahay ma laha aniga wanu imaada faktuurkaygaan soo dirsadaa mataqaanaa wax abaas relax naga dhexeeya ma laha